jooga urmoodkaas habta maanta hoggaanu midaysan hawsha haddaynu helnay muwaadin haddan hanano dhulkeena hantida waynuhu ku duugay haddaynu haraad ku reebno haddaan heesaha garaadka haddaan ku hormayno yoolka haddaan ku hormayno yoolka haddaynu helnay muwaadin haddan hanano dhulkeena hantida waynuhu ku duugay haddaynu haraad ku reebno haddaan heesaha garaadka haddaan ku hormayno yoolka haddaan ku hormayno yoolka hankii qaranka rumoobay hankii qaranka rumoobay hankii qaranka rumoobay horta marka hore waxaan halkan ka salaamayaa dalladda isku timid ee dahabkii leh maxaan ku dhahdaa muuskii leh hudheerkii leh dhammaan afarta ururo isku tegey ee dhabka hadalkaa een dhuumanaynin ee dantooda u walaaloobay ee dantooda isku raacay ee dawladdooda iyo qarankooga inay isbarbar taagaan maxaan ku dhahdaa ku bahoobay ku midoobay weeye marka waxaanu leenahay walaalayaal waxaan idin leeyahay istajiya wax aliyaala wax laydinka qaadayaa ma jirto wax aliyaala wax dhibayna haystaa ma jirto nabad iyo caanaynu joognaa afar qof oo hadlayna waxba inaga qaadi maayaan awalba waa kuwii hadli jiray waxaan idin leeyahay waxeenii iyo dawladeenna iyo calankeenna iyo ciideenna wixii ay naga maqana ka sugaynaa ilaahayna wuu inaga siinaa samadaa wax laga bixiyaa wixii ilaahay noo qoray waynu helaynaa keena booslina insha Allah wuu heli doonaa keena booslana Allah u barakeeyo waxaan leenahay ducaynalo waajiba dalkeena iyo ciideenna qaylo iyo qasmo baahna doorashadii baa la gelayaa waxaan idin farayaa haddaan gudoomiyihii guud ahay in caruurta yaryar aan diiwaangelinta qaadan ay diiwaangelinta qaadato in raggeena si sharaf leh u kala reebno inaynu u midowno in suuqa ugu balaaran baynahay nabadgelyada ilaashano inaynu maxaan ku dhaw wixii islaam waliba qalka ku xigay jaarkeega cidda soo galaysa nabadgelyada ilaaliso in wixii suuqeena ku soo kordhay nabadgelyada ciidanka booliska sharafta badan leh aynu la xiriirino waxaynu inagu u taaganahay nabadda dalkeena waxaan idin leeyahay maayirkana waxaan leeyahay waan salaamayaa waan hambalyeeynayaa been abuurka laga sameeyay maayirka iyo gudoomiyaha 26 Juun been abuurka laga sameeyayna waan ka raali gelinayaa waananu ognahay waxaan meel adduunka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa min caarid lahaa kama xumin min caaridka wayna dhiiri gelinayaan wayna tartasiyaan kama xumin ha ahaadaan min caaridkooga waxa weeye nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam adeerkii fadeexadayna uu daba socday marka xilka ayaa cayda leh maayir baa la deynayn madaxweynaha la deynayn islaan gudoomiyaha la deynayn marka waxa leeyahay waxay naga qaadeen ma jirto waxa leeyahay dadkayga daladayda sharafta badan la isku timid ee quudiya adeeg inay istajiyaan inaga 1800 qof baynu nahay ilaahay umba wax naga qaadi kara cid kale waxba inaga ma qaadi kartee assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh gudi macnaheedu hadii aan idin faahfaahiyo wax weeyaan bulsho meel isugu timi oo cid iska soo saartay iyagoo ay raali ka tahay oo dirsaday hawlaha dadkaas ka qabiyada ay u baahan yihiin in looga qabto suuqyada dawladooda wixii ay ku leeyihiin oo aan markaa haynin gudidan waxa doortay suuqa gobonimo
qudaarleyda nooc kastaba ha ahaatee hawlihii ay u dirsadeen wax qabadkoodii bar waa joogaa oo way maxaa qabteen inta kalena way sugayaan waanay ku taba jiraan sidii ay u heli lahaayeen xaqa ay ku leeyihiin dawladooda guddidu waxay u abuurantahay u dhisan tahay oo ururkan tawakkal la yiraahdo quud iyo adeeg oo u taagan yahay guddidan suuqa in ay bulshada suuqa ku dhisan hesho horta marka koobaad isku tiirsan iyagu ay isku tiirsan yihiin oo ay isxaalog yihiin marka labaadna in ay hesho xaqa ay ku leeyihiin dawladooda oo madaxdooda inta loo imaday inay la xiriidho oo suuqa uga soo qalba warbixiso wixii ay u baahan yihiin hadday tahay hangaro iyo meelaha ladhaho lagu harsado hadday tahay meelo dhismayaalahoo la maalgashado hadday tahay maalgelin danyarta suuqyada la maalgeliyo hadday tahay caawimo kuwa maxaa waxba aan haysana ducufada ah ee suuqyadana ku ganacsanaya ganacsigooda hooseeyo in wax la siiyo guddidu intaa ma u dhisan tahay guddida intaa ma lagu ogyahay wixii horena waa la helay waxa dambana waa lagu daba joogaa insha allahu raxmaan waqti dhowna waa la heli doonaa waxaan aad uga xumahay wuxuu yidhi ninkii walaalkii hadalkiisa suluugay alle qabay afkana waa yaqaan waana ka agnaan waxaan aad uga xumahay hablaha iyo ragga iskaashaday ee shalay intay aqal galeen yidhi maayarkaa guddi abuuray maayarku guddi ma abuuree agaasimayaal iyo wuxuu magacaaba guddoomiyaal waxayeed guddida waxaa doorta suuqa iyo bulshada markaa isku timiyee danta leh sidaa ma tahay waxa weeyaan guddidu waxay u taagan tahay oo intan iyo in kaloo maqanba uga wakiil tahay waxyaabaha ka dhiman ay u baahan yihiin taasaanu u taagannahay ku hor soconnaa dadweynahayaga noogu ogol yihiin noogu doorteen boqolaal qof ayaa doortay boqolaal qofna waa u taagan yihiin sidaa mat waxa weeyaan waxaan si weyn oo mugiyo miisaan looga raali gelinaynaa oonu uga raali gelinayna maayarka caasimadda Hargeysa ee hawlaha ballaaran caasimadda ka wada barkoodna fuliye barka kalena insha Allah caafimaad qabiyo cimri dheer aanu kula suganayno ku ducaynayno hadalka la yiri guddi buu abuuruu sameeyay isagu guddi aw abuuray karaa ma jirto maayarku inuu nagu taageero waxaan anagu doonayno oo nagu garab joogsado oo wax noogu qabto mooyaane ma jirto guddi aw maayarku noo abuuraya sidaa daraadeed anoo ka raali gelinayna waxaanu leenahay marka hore borotokoolada guddiyada loo dhisto cid aan garanayn inay ka hadashaa macquul maaha ciddii lagu ogaana inay gabto xilkeeda qaban wada wixii laga sugayey macquul maaha waxaynu isku ognahay horseed waxaanu idinku nahay oo aad noo dirateen aad noo igmateen inaynu ka midho dhalinno oo god walay gasho iyo madax kasta ay ku maqan tahayba aanu ka baadi doonno wixii qabsamay ilaahay baa inoo qabsay waxa maqana ilaahay madaxdeeda aynu ka sugaynaa sidaasaynu isku ognay dadweynahana igmadayow ما تهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. هالكا وحن كسلام يا مدحد السوماليان وما يرك عاصمة الرئية ما يرك حجينك إيا مدحد السوماليان ودن مدحونا موسى بي عبدي وحن كسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحويان هالكن وحنقول ما أنت إنا نعدينه تاجرنا جودية قبلنا جود إنا نشاقنا شرف ده هالكا كيمد قبلنا ده كده شوك عفر تقفى إدونا يونا كو عياران شرفت قبلنا وما قلنته قبلنا وما قلنته تبلا يرالا ماير تدير هذا ماير كعاصمة وحو دارته يقودي ده ماير كعاصمة قدي ما دارته
dadweynaha doorta soo maaha dadweynuhu isagaa isdoorta isagaa istirta waxay isu doortaan baahida ka maqan danyarta inay u baadi doonaan wixii ka maqan wax kastaba ha noqotay soo sidaa maaha waxa weeyaan haddaba waxaan leeyahay maayir xaal iyo boolatiish baanu ka bixinaynaa aflagaadada gobonnimo 4 qof ee xuska galay ay ku hadleen 4 qof ee xuska galay ay ku hadleen xaal iyo boolatiish baanu ka bixinaynaa waxa weeyaan dadka shanta guri iyo shanta boolood ee bannaanka wadada kireeyay ee gobonnimo cunay dadka inay aflagaadeeyaan maayirkana wax ka sheegaan waa nasiib darro mana ogolin soo maaha ma ogolin inay madaxda ceebeeyaan ma ogolin raallina kama nihin maayir annagu waxaanu nahay guddiga guud ee gobonnimo waxaanu nahay hablaha garab adag dalladda quud iyo adeeg ururada isu tegay ee dhammaystiran miirkooda iyo maankooda iyagoo miir qaba isku raacay ku tashaday inay wax noqdaan dadkooda iyo dadkay mas-uulka ka yihiin iyo qaranka Soomaalilandba waxqabadkoodaanu u midownay adigana waanu ku garab taagannahay hawl iyo dhib wax alla wixii halkaa ka yimaada garabkaagaanu nahay horena waanu ahayn imikana waanu nahay soo sidaa maaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعد السلام وحويان أورور هذا أدركيسان وأورور كلا دلّت دلّيلا قودية أديك وحي ككوبان تاي أفر أورور أو إسكويمد أفر تا أورور كلا أورور ككهون إيا أورور كتوكل موسكا أورور كهو ديرك إيا محنكو دعدا ويلكا أو سماوده أورور كذهبك أو هلاعة أفر تا أورور إسكوتجي ujeedada ay leeyihiin waxa weeyaan iyagoo ismuujinaya sharaftooda iyo aqoontooda iyo wadanidoodnimadooda aad iyo aad waxaan u hambalyeeynaa maayirka iyo maayir ku xigeenka iyaanu aad iyo aad u hambalyeeynaa annaga oo ka dibaaqtamayna arrimaha halkan ka dhacay oo la yiri guddi bay leeyahay horta bacadluhu waa bacadle khudaartuna waa khudaarley dhammaan khudaartu guddi bay leedahay iyo guddoomiyaha khudaartu waxa weeyaan Saynab Khawaaje guddoomiyaha muuskuna waxa weeyaan Nuura Mahdi Nuur guddoomiyaha dahabkuna waa Fadxiya Maxamed guddoomiyaha weelaha iyo hudheydkuna waxa weeyaan Cabdi Nuur weeyaan intaas oo urur oo isku yimid waxay iska kaashadeen inay ismuujiyaan sharaftooda iyo waxay dawladooda u qabaan annagoo aad iyo aad ugu mahad celinayna maayirka iyo maayirku xigeenkaba guddi annaga waxa noo ah oo aanu ognahay guddida khudaarta guddida bacadluhuna waa guddi gaar oo bacadliyo waxaanu kala nahay khudaar maadaama aanu annagu khudaar leenahay guddida noo guddida ah marde waqtigoogu ma garanayno uu dhacay oo la yiri waqtigii waa laga bedelay tii ay ka hadlayaan been abuur ay maayirka ka sameynayaan oo leeyihiin maayirka guddida bedelay annagu manaan maqal wax la bedelayna maanu maqal guddida iyada ayaa sharafta leh iyaanu halkan ku hambalyeynaa guddida iyadaasi waxay ka kooban tahay annagoo ka kooban inta urur aan idin soo sheegay oo uu ka mid yahay dalladda guud aanu isku nahay gaar ahaan dalladda guud quudiya adeeg weeyaan dhammaanta iyo annagoo 4 urur ah gaar ahaanna 4 urur ee kala kaanka aanu nahay ee muuska iyo khudaarta kale iyo hudheydka iyo dahabka intayada annagoo mid walba guddidiisina wuu wataa intaa waxa ka mid ah guddida khudaarta waxa uu guddoomiyaa Saynab Khawaaje ayaa uu guddoomiyaa kuwaasoo iyagu dawladdu wixii ay ku lahayd siiyay haystana hantidoodii hangarana gala oo iyaga dawladdii maxaan ku dhahaa maayirkii hore wuxuu u dhammaystiray annagoo ah saddexdeeda urur ee kale waxaanu ka sugaynaa maayirka magaalada Cabdikariin Axmed Mooge iyaanu maanta ka sugaynaa kiyo calaamadayadii hore iyo boodhka iyagii noo dhigay maayirkii
cabdiraxmaan caydiid soolteeko oo calaamadayadii noo taallo waxaanu ka rajaynaynaa aanu kaga rajo weynahay intayadaasoo maxaanku idhaahdaa bacadyaala oo danyara oo wax walba leh oon hanti ku lahayn meesha oo kira iyo silic ku nool oo kolkii la raafay midba meel ka degay waxaanu rajaynaynaa inuu maayirku annagana sidaasoo kale noogu dhiso oo noo siiyo ayaanu ka rajaynaynaa annaga oo isku tiirsan dhammaantaya afartayadaa urur ee isku yimid ee maxaanku idhaha sharafta leh ee dalladda quudiya adeega waxaanu dhammaantayo isku taageersannahay inaannu mawqaf keliya iyo wadajir keliya iyo walaalnimo keliya aanu ahaano dawladdayadana hiil iyo hooba aanu la garab taagannahay hawl kastoo dhacdana aanu diyaar u nahay wixii hawl yimaada iyo wixii shaqo la qabanayo quudiya adeeg dalladda quudiya adeeg haddaanu nahay kow baanu ka nahay lambar 1 annaga u diyaara kuna ammaanayna maayirka iyaga sharafta leh mar walba nagu garab taagan kana rajaynayna intayadaa bacadka joognana inuu noo soo maaragtay dhaweeyo uu noo dhisa sida hangaradaas oo kale in yar baan ku darayaa anigoo calankayga aad u jecel aad iyo aad calankayga u jecel in yar baan ku darayaa calankan dhiigayga iyo dhuuxa raacayow calanka tawxiid kale lagu tilmaansadow kumbaa u dhinto kumbaa dhaawac adag u galay kumbaa dhagabeelay oo dhiigu wali socdaa kumbaa ku curyaamay oo caguhu maqan yihiin dhayal ninkii moodayow dhiig buu ku taagan yahay eedhiga xamareey xajiintada igala duru halkaasaan ku soo dhawaynaynaa guddoomiyaha iyagii oonu sharaftiisii iyo wixiisiiba u dhammaystiray assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan hambalyaynayaa maayirka waxqabadkiisa iyo sida fiican ee uu wax noogu qabtay iyo sida uu magaalada wax ugu qabtay aad baan u soo dhawaynayaa waxa kaloon halkan ka caddaynayaa dhammaan dadka guddida suuqa gobonimo ee guddideedii hore ahayd sida sharafta leh ee cadaaladda leh ee wanaagsan ee alla ka cabsiga leh ee ay wax noogu qabteen ee wax noogu qaybiyeen ee ay dadkii danyarka ahaa iyo kuwii agoomaha ahaa iyo kuwii dhulka yaallayba ay kor u soo qaadeen ay boosas ay hawl dheer u galeen aad baan ugu hambalyaynayaa annagu waxaanu leenahay guddi gaara oo ah guddida khudradda oo Saynab Khawaaje ay guddoomiye ka tahay oonu ognahay oo ay aad wax ugu qabatay suuqaasi oo ay dadkii baahnaa kor u soo qaaday oo ay agoomihii u dooday oo ay dadkii dhulka yaallay u dooday oo qof walba boos laga siiyey ilaahay miisaanka xasanaadka iyadana ha ugu daro guddi raga iyo guddi bacadla'a midna shaqo kuma lihin dumarka iyagaasaa noo xogogaala iyagaana ogaa iyagaa naga warhayey iyagaanu 30 sano isaag joognay iyagaa ogta baahan iyagaa ogta maxaan ku dhahday agoon haysata iyagaa ogta maxaan ku dhahday daymowda ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro guddideedu waa kuwa cad ee horena uu caddaa imigana noo cad halkan waxaan ka hambalyaynayaa maayirkayaga sharafta leh cabdikariin axmed mooge si sharaf leh noogu shaqaynaya maatida hoosu og na wada og marka waxaanu leenahay dumar baa cisho dheewood halkan been abuur ka sameeyey maayir baana doortay lahaa aan waxba ka jirin maxay ahayd guddoomiyihii juun been ka sheegay dadkaasi warkooda waanu beeninaynaa maayir 12 dumar ee guddiya ee suuqa ka shaqeeyay meeshan ka guddiya marka maxay dadkaasaan ku qaracsan hadaan suuqa gobonimo ee khudradda nahay dadkaasaan horena noogu shaqeeyay aanu farteeda ku dooranay imikii haatan aanu sidii wali u jecel lahay dooni mayna cid kalena guddideeda sharafta leh ayaan ku kalsoonahay anagu bacadlici toona shaqo kuma lihin guddideeda sharafta leh ayaan dumarkayaga guddida ayaan ku kalsoonahay anagu oo ku sharafta leh ayaan raacsanahay oo ku kalsoonahay guddideeda oo noo shaqaynaysay oo wax walba noo qabatay guddideeda sharafta leh ayaan anagu ku kalsoonahay cid kale ku kalsoonay ma jiro cid kale oo bacdana shaqo kuma lihin cid kale shaqo kuma lihin anagu guddideeda dumarkayaga asaan ku kalsoonahay dumarka wax noo qabanay wax walba noo taray aan ku kalsoonahay iyo maayirkayaga sharafta leh gobonimo waxaan ka hadlaynaa maanta guddidayada inaanay guddi kale aanay jirin oo guddideeda sunno guddi tahay waxaan ka salaamayaa maayirkayaga madaxweynaha dhammaan Soomaaliland oo dhan waxaan cadaynaynaa inaanay guddidayada mayo guddi kale aanay jirin ay Saynab Khawaaje guddoomiye u tahay
dee guddida gobonnimona anoo guddi kale kuma ogin waxaan kaloo salaamayaa maayarka magaalada waxaan leeyahay maayar horta dee jazaakallaahu khayran waxaad waddanka u qabatay waxaad suuqa gobonnimo u qabatay barnaamijka la sheegaya la leeyahay maayarkii guddi buu magacaabayna waanu ka raaligelinaynaa maayarka inaanu guddiga goobtoona magacaabin guddida gobonnimo waa dumarkaa 30 sannadood guddoomiyaha u ahaa gabadha ay u tahay ina qawaajin ay u tahay guddoomiyaha ayaanu ognahay inuu guddoomiyaha suuqa gobonnimo khudradleyda dad badan bay wax u qabteen agoobo badan bay caawiyeen danyar badan bay caawiyeen suuqa aad iyo aad bay uga warhayaan ilaahay miisaanka xasanaadka allah u saaro dumarka 12 dumara ee waxaan ku isku howlay inay suuqaas wax u qabtaan si cadaalad wax ugu qabtay dadkii si cadaalad boosaska ugu qaybiyay si cadaalad wax ugu taray ayaan mar walba anagu guddoomiye noo ah guddoomiye kalena nama matalo haddaanu nahnay anagu shicibkii suuqa ku ganacsanaya dumarka danyarta ah ayaanu nahnay waxaana noo guddoomiye ah ina qawaajiba noo guddoomiye ah anoo guddoomiye kale ma lihin rag iyo dumar kalena diyaar uma nihin dumarka marka hore waxa ogaalkayaga ahaa ee baahidayada ogaa ee dhibaatayada ogaa ee dumar ahaan ku xog wareysanaynay unbaa imikana guddoomiye noo ah guddoomiye kalena maayir anagu raali kama nihin haddaanu nahnay shicibkii ku noolaa suuqa gobonnimo dumarka khudradleyda ah marka anagu waxaanu leenahay guddoomiyahayaga walba cadaalad buu noo sameyn jiray walba cadaalad uu noogu la shaqeynayay si ilaahay dartii buu noogu caawinayay kaayaga baahan uu ogaa kacbuka uu ogaa ka deynta ku goodo uu ogaa imikana sidii un baan anagu guddoomiyaha guddoomiye noogu yahay guddoomiye kalena diyaaru ma nihin waxaan qudradley guddi bay leedahay qudradley waxay leedahay haddana dad jabsan waxay leedahay guddi fiican guddi waxay leedahay mahadnaqnahad iyo goor guddi siday cadaaladda taqaana guddi si fiican wax noogu qaybisa guddidayadaasi waxaanu leenahay ha jirto ha joogto waanaanu taageersannahay guddida qudradleyda guddi la mid ah welina may soo marin siday wax u qaybinayaan siday cadaaladda ku shaqaynayaan iyo haddana sida qorshahay degayaan musuq ma yaqaaniin haddana xan iyo been ma yaqaaniin waa guddi fiican qudradley baanu nahay haddaanu qudradley nahay waxaanu leenahay qudradley guddi wanaagsan oo horya dibba guddi noogu ahayd imikana guddi noo ah bacadlaha isagu waa bacadle waa kaayagii hase ahaato bacadliya waxaanu kala qudradley anagu bacadle waa nama quseeyo waxaanu leenahay guddida haddaan gobonnimo ee haddana bacadlaha iyo qudradleyda ah taageero adag baanu haynaa waananu jecelay guddidayadu waa guddi fiican haddana waa dumar baanu doorannay dumarkaas saynab khawaajaan oo madaxa intayada kalena waa taageero fiican ku-xigeenka kale gebigood waa dumar jabsan oo fiican dumar baananu doorannay rag waanu ka soo hor jeednaa rag waxba nooma hayo rag qayilaadiis iyo jeebkiis iyo haddana suuqiisa ma dheera habase yeeshee qudradley haddaanu nahay dumarkaa saynab khawaajo u madaxda tahay ayaanu ku kalsoonnahay noona madaxa horena noogu ahaa imikana noogu ahaanaya maayirkayagu wuu mahadsan yahay dadweynaha halkan ka hadlaya ee dheraraqlana dee maayirku ma geyo inuu doorto guddi ma geyo uu ka sharaf badan yahay isagoo mas-uulo oo qaranka somalilan oo dhan madaxweynihiisii labaad in la caayo oo la fadeexadeeyo waxaan afkiisa ka soo bixin layidhaa waanu ka xunnahay waanuna ka raali gelinaynaa maayirkayaga waxaan leeyahay maayir bolotiish iyo xaal baanu ka bixinaynaa annagoo ah guddida gobonnimo ee dalladda quudiya adeeg hablaha garab adag annagoo ah waanu kaa raali gelinaynaa waxaanu ka hadlaynaa dadkii maalintii dhaweyta halkan guriga isku xidhay ee macaaradka ah annaga dadna matala dadkaasu maaha maayarkana waanu u mahad celinaynaa waxaanu ugu mahad celinaynaa inaanu isagu geyin inuu guddi soo doorto aanay maxay ahayday ahayna wax isagu uu shaqo ku leeyahay guddida annaga ayaa iska dhex doorana oo shacaba guddina waanu leenahay guddidaanu leenahayna waxa weeyaan guddi dumara waa saynab khawaaje gabadha laydhaa ururka ka ah u guddi ah gabadha laydhaa nuura mahdi nuur oo iyaduna ururka tawakal guddoomiye ka ah dalladda quudiya adeegna aanu ku midaysannahay oonu guddi iyo guddoomiye ku-xigeenba leenahay dadkaasi annaga dadna matala maaha annaguna sideedaba waxaanu nahay qudaar iyo bacadlana ismaba gayaanba shaqana iskuma laha annagu qudaardeeda mas-uuliyiintoodii way noo joogaan iyaguna cimrigoodba iyaga isku guddi ahaa laakiin 4 dumara oo macaarad oo halkan isku xidha oo ururadan matala 2 bakhaaroo baradhaleeya
iyo laba dumar oo muusley ayaa halkan ka hadla dhayle maayarkana ka aflagaadeeyay oo yidhi guddi buu noo doortay guddi cid u dooratayna ma jirto waxna matalana annaga maaha maayarkana waanu ka raali gelinaynaa guddidii ay sheegtay inay yidhahdeen maayarkaa noo magacaabay xaal baanu ka siinaynaa waananu uga mahad celinaynaa annagana wax bacadloona quseeyaa ma jirto iyagaa isu guddiya bacadlu qudaar haddaanu nahayna annagaa isu guddiyaa guddina waanu leenahay annaga tawakal ahaan muuse ahaan nuura mahdi nuur ayaa noo guddi ah ururka kaah gabadha saynab khawaajo laydhaa ayaa u guddi ah marka annaga dadkaasi waxna matalaba maaha dalladda quud iyo adeeg ee guud na saynab khawaaja guddoomiye kaa waxaanu ku biirnay ururkayagu dalladda quud iyo adeeg waayo waa dalladda midho dhaliska bixisay ee waxaasoo dhan maxay hayday samaysay intaasoo hangarana samaysay markaa dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa markaannu aragnay siday u dhigeen iyo siday dandeertoodii wax ugu qabteen ayaannu annagu ku biirnay maxay hayday dalladda quud iyo adeeg waana dad aad u wanaagsan waana dad soo jeeda waana dad dadkooga wax u qabtay aad iyo aad bay u mudan yihiin markaa guddidaasi sharaf ayay mudan yihiin hambalyo iyo salaan bay annaga naga geeyaan markaa dabkii dab baxayaa dab lagu qabsadaa sidaa darteed baanu annagu ururkayaga afartayadaa urur iskugu biirnay oonu maad aragtay maxay ahaydee aanu ku midownay